gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe iyo mas'uuliyiinta heer qaran, heer gobol iyo heer degmo intii ay booqashada ku joogeen gobolka Awdal waxa uu soo kormeeray xafiisyada xisbigaasi ku leeyahay magaalada Boorama, waxaana xafiisyadaasi kala duwan ku qaabilay taageerayaasha xisbiga oo u muujiyay sida ay u barbar taagan yihiin xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID. waxaana injineer Faysal oo dadweynahaasi la hadlaya uu tilmaamay inay dantu ku jirto in xisbiga UCID loo codeeyo. intiina idinka gacanta ku haysta maalinta afoodka bixinaysa ayaa ku aarsan doonta walaalayaal, cidna ha eegina. ilaahay baa caqligii siiyey, ilaahay baa idin dhamaysiiyey. codkiina bismillaahi raxmaan raxiim dhaha, bismillaahi raxmaan raxiim. xusbiga tawxiidka ee kitaabka sida waa ay footeeyay insha Allah taala. wixii intaasi ka dambeeyay ayaa injineer Faysal Cali Waraabe musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee UCID waxa uu qabtay shir jaraa'id, waxaana uu tilmaamay in isaga iyo xisbigiisu ay wax badan ka shaqeeyeen badbaadinta Soomaaliland, balse maanta ay xisaabta kale ay tartamayaan ay duminayaan. maanta waxaan ii sheegay dhibaato meel kale ka iman mayso. maanta labada musharax reerahooda ka imanaysa, labada musharax Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan. haddii aad doorataan dalkaasi fidmu geliya, hadda midkood doorataan reeray bay kiciyeen, halka bay ku yimaadeen qabaa'il bay wadaan. reerna reer ma ogola. aniga iyo riyaale iyo siinay musharaxiin baanu ahayn, laakiin iyagu musharaxiin ma reeraha musharaxiina. wixii intaasi ka dambeeyay ayaa injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu dadka reer Boorama u iftiimiyay haddii xisbigiisa la doorto waxa uu hayo dadka, waxana uu yidhi anuu rabna wax kale idima hayno subxaana wa tacaala, kitaabka ilaahay sunnada rasuulka idin hayna alayhi salaatu wasalaam. anuu kaasaan cadaalad ku keenina, kaasaan midnimo ku keenna, kaasaan hornimo ayaan ku keenna insha Allah taala. wixii ilaahay naga nahiyay waan iska nahiynaa, wixii isuna yeelaya waa yeelinaa. sunnada rasuulkaan dabaqinaa alayhi salaatu wasalaam. dantiin waxay ku jirtaa ina cadaalad doontaan, ina wada heshaan, ina shaqo dadkiinu helo, ina dekadiina horumarisaan, ina ummadiina wax u qabataan, in meel kasta oo reer Awdal ama reer Soomaaliya ay tacliin hesho. taasaanu idinku balqaadin biidnaa taala. ilaahayna subxaanahu wa ta'ala subxaanahu wa ta'ala. ugu dambeyn ayaa injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu ka jawaabay hadallo dhawaan ka soo yeedhay mas'uuliyiinta maamul goboleedka Puntland, waxaana uu yidhi nimanka shalay garow ka hadliyay jilibka reer meesha degan ee dowladda iska dhigayna adeer Soomaaliland nabad bay doonaysaa, cidna lama colaha. Soomaaliland ma lihidin dagaal waxba burburiya, wax ma abuuro, ilmudina ilma ma dhalo. annagu nabad baan doonaa, Soomaali xumaan uma hayno. 25 idinka isleynayay annagu waxba idinku ma darsan. nabadna siiya walaalahay, nabad nasiya. Abdullah Ali Yusuf on Cable TV.